They are mentioned in the Holy Quran. La ilaha illa ar-Rahman. La ilaha illa ar-Rahman. الرحمن الرحيم المالك القدوس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، kulankani ama darsigani waa darsigii koobaad aynu kaga hadli doono in sha allahu tacaala tilmaamaha manhajka ahlu sunnaha raximahum ullahu tacaala ee ku saabsan saxaabada waxa ay ka caqiidaysan yihiin iyo sida ay ula macaamilaan. waxaa duruustani ay qeyb ka tahay duruus la xidhiidha manhajka ahlu sunnaha iyo tilmaamihiisa si guud. waxaynu horey uga soo baxnay kulamo hore tilmaamaha manhajka ahlu sunnaha raximahum ullahu tacaala ee ku saabsan fii baabi alasmaa'i waalaxkaam iyo dadka axkaamta la siinayo, magacyada ay adduunka qaadanayaan iyo aakharo axkaamta ay mudan yihiin iyo waxaa la xidhiidha sida ahlu sunnahu raximahum ullahu tacaala ay ula dhaqmaan iyo qawaacidda arrintaa ku soo aroortay ama ku saabsan. haddana in sha allahu tacaala saxaabada muctaqadkooda ku saabsan ama manhajkooda tilmaamihiisa ayaynu wax ka sheegi doonaa. inta aynaan marka ka hadlin saxaabada iyo fadligooda wax ku soo arooray iyo ahlu sunnuhu tilmaamaha manhajkooda baabkaa ku saabsan uu leeyahay iyo qawaacidda arrintaa ay ka tilmaameen, waxaynu xusaynaa ama ka jawaabaynaa su-aasha la isweydiin kare ee ah maxaa looga hadlayaa iyada oo masaladaasi masale macruufaba ay iska tahay, saxaabada fadligooda iyadoon cidi diidanayn, iyadoo la ogyahay sida sharcigu u qiimeeyey. waxaanu leenahay runtii wakhtigan hadda la joogo arrimo badan baa keenaya in laga hadlo masaladaasi. hadday rabto waadixba ha ahaato, masalo iska cad ha ahaato, masalo qofka muslimka ah usuusha diintiisa ka mid a ha ahaato, laakiin waxyaabo badan baa xilligan aan joogna keenaya in ictiqaadkaas aada iyo aada loo sii adkeeyo, loo sii dhidbo. waxaa ka mid a waxaa baryahan aada u soo badanaya warbaahinta iyo wasaa'il iclaamka ay leeyihiin nimanka raafidada ah ee ay dhaqanka iyo caqiidada u tahay inay saxaabada wax ka sheegaan ama duraan ama tacniyaan. hadday tahay warbaahintan social mediaha la yidhaahdo, hadday tahay fadaa'iyaadka iyo satellaydyada, iyo hadday tahay idaacado, iyo hadday tahay waxa duuban baxataa ama cd ama codad ah, aad baa arrintaasi u fidaysaa. waxaaba laga yaabaa in la arko dad af soomaali ku hadlaya oo laftoodu dacaayadaha raafidada ama shiicada faafinaya. maalmo dhoweydna waxaa social mediaha lagu arkayba akowno facebooka ku jira oo loo bixiyey rag culimaa ama ducaadii soomaaliyeed ka mida, magacyadooda lagu dhajiyey iyo sawiradooda, kadibna waxa gudaha ku yaala uu yahay ictiqaadkii shiicada ee saxaabada lagu caayayey ama wax lagaga sheegayey. marka in dadka muslimiinta ee af soomaaliga ku hadla si gaar ah ay wax ka ogaadaan ictiqaadka ahlu sunnuhu ay ka aaminsan yihiin saxaabada waa arrin lagama maarmaana. in lagu celceliyana ay tahay ragga culimada iyo ducaaduna inay wax badan ka iftiimiyaan loo baahan yahay, si dadku ayna ugu lugoyn ama ugu dagmin beenta iyo akaadiibta iyo dalaalaadka ay faafinayaan dadka raafidada iyo manhajkeeda aaminsan. sidoo kale waxyaabaha runtii keenaya arrintan in laga hadlo oo aada loogu celceliyo loo adkeeyo waxa weeye manaaqibta saxaabada iyo wanaagooda iyo maxaasintooda in la sheego, lagana digtoonaado in wax laga sheego ama la dhaleeceeyo. waa usuusha ictiqaadka ahlu sunnaha raximahum ullahu tacaala sidaan sheegi doono. qur-aanka ammaanay, xadiidta rasuulka ammaantay sala allahu calayh waalihi wasalam. wanaagooda in la sheego, wixii xumo ka sheegayana laga digtoonaado, in wax laga sheegana la iska ilaaliyo. waa ictiqaadkii ahlu sunnaha usuushii uu ku qotomay. sidaa darteed in la faafiyo saxaabada maxaasintooda iyo wanaagooda iyo ictiqaadkoodii wanaagsanaa iyo dhaqankoodii wanaagsanaa iyo wixii nusuus baabkaa ku soo arooray, iyada lafteedu waa arrin lagama maarmaan oo dacwadii iyo diintii la faafinayay ka mid a. sidoo kale runtii waayadan dambe nimankaa raafidada ah, iyadoo aynu hadda wax ka soo tilmaanay ama shiicada ah, dadaalka ay bixinayaan ee ay hadday rabaan ahlu sunnihii laftiisii isu ekeysiinayaan ee ay ku dhex dhuumanayaan ma yara, iyagoo intaa wax ka sheegaya saxaabadii. marka
in iyaga laftooda la radiyo shubuhaadkooda iyo awhaamta iyo akaadiibta iyo dalaalaadka ay faafinayaan ee baabkaa la xidhiidha waa lagama maarmaan waa loo baahan yahay. ahlu sunnahana raximahum llahu tacala dhaqankoodu wuxuu ahaa manhajkooda si taqriir ana waa u faafin jireen oo wixii iyagu ay qabaan bay sheegi jireen oo saasaan aaminsana saasaan aaminsana saasaa ka buuxda mutuunta ictiqaadkooda. waxaa kaloo ay ka jawaabi jireen dadka kale waxyaalaha baatilka ee ay rabaan inay diin ka dhigaan ama u ekeysiiyaanna waa radin jireen oo waa ka jawaabi jireen. walidaalika kutub badanoo waxay leeyihiin ruduud ah oo ay ku radiyeen dadka inxiraafaadka faafinaya ee dadka waxaan diinahayn diin uga dhigaya. walidaalika waxaynu leenahay in dalaalaadka iyo akaadiibta iyo awhaamta iyo beenta shiicada iyo raafidadu ay faafinayaan ee la xidhiidha saxaabada inaynu ka jawaabno iyadana waxay ka mid tahay usuushii ama manhajkii ahlu sunnaha lagu yaqaanay raximahum llahu tacaala. sidaa darteed waxaynu isku dayeynaa inaynu iyadana waxuun ka tilmaano nimankaasi beentay saxaabada ka sheegeen iyo inaan ka jawaabno wixii ilaahi subxana wa tacaala ina makan siiyo. saxaabada intaynaan u gudbin marka waxaa ku soo arooray baabkooda ee fadaa'il ama wanaaga waxaynu in yar isag taagaynaa inaan xadidno ama tacriifino ama qeexno saxaabiga aan ka hadlayno muxuu yahay. culimmadu raximahum llahu tacaala iyaga ayaa ka hadlay oo qeexay. waxaan ku kaaftoomaynaa tacriifka ibni xajar raximah llahu tacaala fi lisaaba uu ku qeexay qofka saxaabiga ah ee mutaysanaya ammaantii suxbada ee mutaysanaya waxa weeyaan wax alla wixii saxaabi mudnaa oo dadka mu'miniinta uu ka mudnaa oo ah inay wanaag iyo khayrna u maleeyaan maxaasintiisana faafiyaan ayna ka dhowrsadaan inay wax ka sheegaan. saxaabiga wuxuu ku tacriifiyey ibn xajar raximah llahu tacaala wa asaxu maa waqaftu calayhi min dalik tacriifka iila saxiixsanaa intii anigu aan arkay buu yidhi waxa weeyaan ana aلصaxaabiya man laqiya الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama mu'mina bihi wamaata cala اlislaam. qofka saxaabigii waxa weeye qofkii nabiga la kulmay rag iyo dumar kuu yahayba isaga oo markaa nabiga rumaysan oo mu'min ah oo hadduu markaa aanu rumaysnayn oo ama uu kaafir ahaa ama munaafiq ahaa sharafkii suxbada heli maayo. dabadeedna sidaa ku dhintay oo aan ridda uga dambeyn oo aan riddadii ku dhiman. tacriifka marka waxaa ka muuqanaya haddayba ridda timid xataa oo laakiin islaamnimadii uu ku soo noqday inuu isagu rajaxayo inuu markaa suxbadii inayna ka burayn insha allahu tacaala. marka dadka kale suxbadooda waxaa lagu kasbadaa waqti dheer oo marka la leeyahay hebel iyo hebel waa saaxiibo waa dad waqti dheer isku qaatay laakiin sharafka suxbada rasuulka sala allahu alayh waalihi wasalam sida tacriifka ka muuqata waxaa lagu kasbanayay waqtiga intaa la eg barako badan bay runtii lahayd inuu qofku la kulmo nabiga sala allahu alayh waalihi wasalam isaga oo rumaysan hadduu doono yaan hadal gaariba dhex marin iyo wixii lamida. marka isagoo hadalka sii wadabaa wuxuu yihi fayadkhulu fi man laqiyahu dadka la kulmay waxaa soo gelaya man taalat mujaalasatuhu lahu aw qasurat qofkii waqti dheer la fadhiistay oo xilli dheer la qaatay ama waqtiga uu la fadhiistay ay koobnayd labadaba waa soo gelayaan. waman rawaa canhu waman lam yarwi qofkii wax ka wariyay iyo kaan ka warinba waa soo gelayaan. waman gazaa macahu aw lam yagzu qofkii la duulay iyo kaan la duulin iyana labaduba waa soo gelayaan. waman ra'aahu ru'yatan walow lam yujaalishu waxaa soo gelaya oo kale qofkii arkay uun keliya hadduu raba yaanu la fadhiisanine. waman lam yarahu qofkii aan arag baa xataa soo gelaya licaaridin kalcama sidii isagoo inuu arko ay indhala-aan u diiday oo kale iyo ama indhuhu markaa xanuunayeen iyo laakiin la kulmay oo si meel laga arki kara u gaadhay isaga laftiisu waa soo gelaya. marka waxaa soo wada gelaya saxaabadii yowma xajati اlwadaac la sheegay 120,000 xataa inay ka badnaayeen khudbadiisa dhegaysanayay ee qaarkood fogaana aad u dheer xataa ay ka arkayeen. tacriifkan sida ibn xajar raximah llahu tacaala uu ku dabdiyey waa soo wada gelayaan ciddii markaa nabiga aragtay sala allahu alayh waalihi wasalam isaga oo rumaysan waktiguu la qaatay intuu doonaba ha gaadho ha dheeraado ha yaraado ha la hadlo yuu la hadlin iyo wixii lamida. intaasoo dhan ayaa saxaabadii rasuulka ah sala allahu alayh waalihi wasalam oo soo gelaya. saxaabadaas ridwaan ullaahi calayhim ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sharfay inay rasuulka u heeliyaan oo garab iyo gaashaan u noqdaan oo cilmiga iyo waxyiga ka qaadaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ku ammaanay waxyiga haddii uu yahay qur-aanka iyo haddii ay tahay sunnada nabigaba sala allahu alayh waalihi wasalam. marka waxaynu ka soo aroorin doonaa qeybo koo kooban
si aanu ogaano maqaamkoodii iyo qiimaha uu sharcigu u yeelay. waxaa ka mid ah nusuusta qur-aanka ee baabkaa ku soo aroortay saxaabada wanaagooda iyo fadligooda iyo ammaantooda qowluhu tacaala fi suurati الtawba والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إلهي سبحانه وتعالى صحابة رسولك يددكي مهاجرين يا أنصار لها يعد ودودودي مرتي عن خلاف وهالبيق وحوي إن يجي للراعو qofkii khilaafa waa qof makhduul oo inkaari ku dhacday. marka dadkii sidoodii u raacay iyo iyagiiba ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay raalli buu ka noqday, iyana raalli bay ka noqdeen. marka ridwaanullahi iyo ilaahay raalli ahaanshihiisu wax yar maaha. waxa intaa dadku u dadaalayaan ee loo sacyeeyo waa ilaahay raalli ahaanshihiisa in la gaadho. ilahay marka wuxuu inoo sheegay inuu iyaga raalli ka noqday. ciddii marka sidaas si aan ahayn sheegta oo waa gaaloobeen iyo waxbaa ka khaldanamaa iyo rasuulkay khiyaanayeen, waxaa dadka la yimaada waa dad nusuustii waxyiga khilaafsan wey. ilaahay subxaana watacaala addoomihiisa cidna ugama ogaal badna. waxa uu uga raali noqday ilaahay waxuu ku ogyahay weeye, iyana ilaahay bay raalli ka noqdeen. labadaaba alla waa u qiray. wuxuu kaloo alla u yaboohay sida aayadda ku sugan jannadii inay gelayaan. waacadda lahum jannaatin tajri taxtaha alanhaaru khaalidiina fiiha abadan dalika alfawzu alcadiim. waa ammaan iyo wanaag saxaabada ilaahay subxaanaه watacaala uu u sugay. sidoo kale waxaa alle subxaanaه watacaala fii suurati اlfatx uu meelo badan kaga hadlay saxaabada fadligooda iyo qiimahooda. meelaha waxaa ka mid ah aayadda suuradda ugu dambeysa ee uu saxaabada iyo rasuulkaba alle ku sifeeyey subxaanah. muxamadu rasuulu اllah wاladiina macahu ashidaau calى اlkufaari ruxamaau baynahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إلهي سبحانه وتعالى رسولك صلى الله عليه وآله وسلم iyo saxaabadiisaba ku sheegay oo ku sifeeyey tilmaamo wawan wanaagsan oo ay leeyihiin oo iyo kuwo ku sugnaaba ee kutubihii hore ee towraad iyo injiil lahaa. ilaahay subxaanahu watacaala rasuulka iyo saxaabadaba wuxuu ku sheegay inay gaaladana ku adag yihiin oo dadka ilaahay subxaanahu watacaala cibaadadiisa la wadaajiyey mushrikiinta iyo gaalada cadowga ilaahay inay cadow u yihiin oo ay ku adag yihiin buu ku ammaanay. wuxuu kaloo ku ammaanay inay iyagu dad isjecelo isu naxariista yihiin haddii ay mu'miniinta yihiin. waxaa alla uu ku sifeeyey subxaanahu watacaala inay rukuuc iyo sujuud uun ku jiraan iyagoo ilaahay subxaanahu watacaala fadligiisa iyo raalli ahaanshihiisa raadinaya. calaamadda iimaanka iyo islaamnimadii waxay ka muuqataa wejigooda aahaartii sujuudda darteed. sidaas baa alle subxaanahu watacaala wuxuu yidhi waxay ahayd tilmaanta ay ku leeyihiin towraad. saasaa towraad sidaasaa lagu sifeeyey rukuuc iyo sujuudda dad badiya inay yihiin dad calaamaddu ay laga garanayo min athari sujuud ay ka muuqato inay tahay inay ilaahay raalli ahaanshihiisa iyo fadligiisa raadinayaan oo u dadaal badan yihiin. injiilna ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku sheegay tilmaanta ay ku leeyihiin inay ahayd sidii beerta baxday ee laamaha badan bixisay si ay isu xoojiso oo aada iyo aad dadka beeralaydihii markay arkaan ay ugu farxayaan sida ay nabiga ugu hiilinayaan sala allahu alayh waali wasalam ama ugu gadaaman yihiin ee garabka iyo hiilka ugu yihiin. sidaasoo kale lagu sifeeyey geedkii beerta ahaa ee baxay ee haddana furuucda badan bixiyee sidaa ku gaamuray ku adkaystay tilmaantaasay lahaayeen. ilaahay subxaana watacaala marka wuxuu yihi liyagiida bihim alkufaar. ilahay wuxuu saa u yeelay si uu ugu cadhogeliyo ama ugaga cadhaysiiyo kuwa gaalada ee islaamka necab. wacd allahu aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati minhum makfirata waajra cadiima. ilaahayna yabohaasuu aayadda ku khatimay inuu u ballan qaaday kuwoodii wanaagga iyo camalka wanaagsan sameeyey dembi dhaaf iyo ajir weyn baa alle subxaana watacaala u ballan qaaday. sidaasuuna ku ammaanay. ilaahay subxaanahu watacaala
aayadaha kale ee uu ku tilmaamay ammaantooda saxaabada waxaa ka mid a qowluhu tacaala في سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. إلهي سبحانه وتعالى وحو ليه صحابتي إساقوا الله الله قفكي فتحك كهر وحبحيي يكي كدن ببحيي اسكو مدمأة كوي fatxiga ka hor intii islaamku ciriiriga ku jiray ee uu dadkiisu tabarta yaraa dadkii islaamka u hiiliyey baa darajo weyn oo ka darajo weyn kuwii gadaal wax ka bixiyey ee gadaal ka dagaalamay. haddana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wakullan wacada allahu alxusnaa, ilaahay dhammaantoodba haddana midii wanaagsanayd buu u yaboohay sida ahlu tafsiirku ay sheegeen. qaar ka midana waxa weeye alxusnaa iyo aljanna جنة أيو يبوهي والله بما تعملون خبير. ولذلك الإمام ابن حزم عليه رحمة الله وحو أيضا أدري شدي لما صحابة الرسول رضوان الله عليهم إني أهل الجنة قد قد وحي فتحي كهري وحي كدن بيهيبة سقو أدري شنية عموم كاس وكلا وعد الله الحسنى. إلهي سبحانه وتعالى قد قد مردمان تود وناقائية جنة سوء يبوهي. sidoo kale nusuusta macnaha ku soo aroortay waxaa ka mid a qowluhu tacaala markii uu alla ka hadlayey fi suurati alxashr meelaha zakada fayga lagu bixinayo lilfuqaraa'i almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim waamwaalihim yabtaguuna fadla min allahi waridwaana wayansuruuna allaha warasuulah ulaa'ika hum asaadiquun. bal cibaaradaa u fiirso ilahay xaggiisa subxana wa tacaala ka timid ulaa'ika hum asaadiquun, iyaga unbaa kuwa runta sheegaya. siiqada xasriga faa'iideynaysa baa alla ku tilmaamay inay run sheegayaan oo iyaga unbaa yihiin wixii iimaankooda iyo camalkooduba uu run ka yahay. marka faygii waxaa alle subxaanahu watacaala uu leeyahay dadkaasaa mudan. masaariftiisa waxaa ka mid ah fuqaradii muhaajiriinta ahaa ee amwaashoodii iyo guryahoodiiba iyagoo ilaahay fadligiisa iyo raalli ahaanshihiisa raadinaya oo u hiilinaya ilaahay iyo rasuulkiisa uga soo tegay guryahoodii iyo hantidoodii. wuxuu marka allah ku tilmaamay subxaanahu watacaala inay yihiin dad ka run sheegaya iimaankooda iyo camalka ay samaynayaan iyo waxa daahirkooda ka muuqda intaba. waxaa kaloo alla sheegay masaarifta fayga inay iyadana ka mid tahay aayadda xigta waladiina tabawa'u daar, kuwaas muhaajiriin bay ahayn, kuwan ansaar wey. waladiina tabawa'u daara waliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutuu ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إلهي سبحانه وتعالى مركا أنصارنا آيادا سوكو أمانا يوحون الشيغي إني كمدهين ميلها فيقا لقو بحنيو وحو الشيغي الله سبحانه وتعالى إني يو دارتي إيمانك مدينة أحيد أول بدقنايين ولا لهودنا أي الدومين مركي أي أيمادين يقو أولي بتشعل oo u dooraya wixii ay markaa iyagu lahaayeen naftooda intay ka qaadaan walaalahood ku horumarinaya. ilaahayna subxaanahu watacaala waa ku ammaanay wanaaggaa ay lahaayeen ee sameeyeen. nabiguna sala allahu alayh waalihi wasalam isagaa u sheegay nin saxaabadii ka mid ahoo ansaari ahaa xadiidka bukhaari iyo keyrkiiba ku sugan inuu ilaahay la yaabay sida ay yeeleen. cajiba rabukumaa min saniicikuma alleyla, waxay ahayd nin marti ah oo soo martiyey ayay aalu beytkaasi ama qoyskaasi wixii ay caruurtooda siin lahayn mooye wax kale iyagoo aan ahayn buu u yimid oo markaas ciyaalkii inta la seexiyey oo la xeeladeeyey oo iyagiina ay iska soo jeedeen oo iska hadadleen bay intii lahayeyba keligii siiyeen ninkii dayfka ahaa oo saasay ku martigeliyeen. ilaahayna subxana wa tacaala marka waa kaa ku ammaanay wayu'thiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa, xataa gaajo hadday hayso walaalahood bay ku horumarinayaan oo u doorayaan. sidaasaa alla ku ammaanay. kadibna ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka hadlay masrafka kale dadka kale ee fayga la siinayo waladiina jaa-uu min bacdihim, kuwii markaa iyaga ka dambeeyey ee gadaashood yimid yaquuluuna rabbana اغfir lana waliikhwanina aladiina sabaquuna biاliimaan walaa tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uufu raxiim. dadkaa iyaguna ka dambeeyey ee mu'miniinta ahaa oo lagu sifeeyey
inay iyagii horta u ducaynayaan saxaabadii muhaajiriin iyo ansaar lahaa oo ayna ceel iyo cuqdad iyo xumana u qabin, kuwaasna iyaguna waa masaariftii fayga ayay ka mid yihiin. walidaalika alimaam maalik raximah llahu tacaala caalimi daari lhijra wuxuu ku tegey cid alla ciddii saxaabada wax ka sheegta raafidada iyo waxa la midka ah inaan fayga waxba laga siinayn, maxaa yeelay wasfigii musaaxibka la ahaa ma ayna la iman. waladiina jaaءuu min bacdihim yaquuluuna rabbana اغfir lana waliikhwanina aladiina sabaquuna biاliimaan, inay u duceeyaan bay lahaayeen, inay ku ammaanaan wanaagoodii bay lahaayeen, inay ilaahay ka baryaan inaan ilaahay cadho iyo ciil qalbigooda u gelin dadkii iimaanka ugu horreeyey bay ahayd. haddii marka sidaas si ka duwan ay yeeleen buu yihi raximah llahu tacaala oo ay saxaabadii colaadiyeen, fayga waxba laga siin maayo. sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala nusuusta qur-aanka ee uu ku ammaanay saxaabada waxaa ka mida qowluhu tacaala laqad taaba allahu calى الnabiyi wاlmuhaajiriina wاlanصaari aladiina اtabacuuhu fi saacati اlcusra min bacdi ma kaada yaziiqu quluubu fariiqi minhum ثuma taaba calayhim inahu bihim ra'uufu raxiim. ilaahay subxana wa tacaala fi suurat atawba wuxuu ilaahay sheegayaa inuu saxaabadii ka towbad aqbalay iyo nabigii muhaajiriin iyo ansaar intaba, dadkii xilligii adkaa dagaalkii jeysh ulcusra ama tabuuk raggii raacay markii dadku kala baxay oo haddee wixii iimaankooda wax ku jiray ay haleeli kari waayeen ama kari waayeen inay ka qeyb galaan oo raacaan, ilaahay subxaana wa tacaala dadka waa ka towbad aqbalay. ilaahayna subxana wa taala dadku jecel yahay buu ka towbad aqbalaa. ثuma taaba calayhim inahu bihim ra'uufu raxiim. kuwii gadaal loo dhigayna wa cala aladiina khulifuuna sida aayadda kale lagu sheegayna kuwii xataa raggii mukhalafiinta ahaayee saddexda ahaayee waxoogaaga la yar ciqaabee muqaatacada lagu sameeyey kacb ibni maalik iyo raggii lahaa, ilaahay haddana subxana wa tacala wuxuu qur-aanka ku sheegay iyagii laftoodii in laga towbad aqbalay. dad ilaahay marka ka towbad aqbalay bay ahaayeen giddigood. sidoo kale ilaahay subxaana wa tacaala fii suurat alfatx wuxuu ku sheegay inuu raalli ka noqday, aadna alle waa u taskiyeeyey. laqad radya allahu can اlmu'miniina id yubaayicuunaka taxta الshajara facalima ma fii quluubihim faأnzla الsakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegay inuu raalli ka noqday mu'miniintii. waxaa loo jeedaa markan saxaabadii baycada nabiga kula galay salى اllahu alayhi waalihi wasalam taxta الshajara yowma alxudaybiya, dadkii nabiga baycada la galay iyo heshiiska inay ku dhimanayaan islaamka difaaciisa, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay inuu raalli ka noqday. wuxuu kaloo alla sheegay inuu alla raalli ahaanshahaasi inuu ka dhalanayo o ka ratibmay inuu alla ogyahay waxa qalbigooda ku jira ee wanaag, yacni daahirkoodii ma ee baatinkoodiiba xataa la taskiyeeyey. cid taskiyada haysatana adduunka ma joogto. ilaahay subxana wa tacaala marka wuxuu leeyahay faأnzla الsakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba. ilaahay deganaanshana waa ku soo dejiyey, fatxi dhowna alla waa siiyey subxaana wa tacaala. waa kii khaybar wax yar kadibba ilaahay u furay subxaana wa tacaala. marka dadka taskiyadaas haysta ee ammaanta intaa la eg waxyuga ammaanay, ciddii sidaa waxaan ahayn ka sheegta waa cid ilaahay iyo rasuulkiisa khilaaftay, waa cid iyadu hawadeeda ku socota oo colaad iyo ciil ay islaamka iyo ehelkiisa u qabaan uun ay wada mooye aan wax cilmi ah iyo wax la cuskan kara midna ku qotomin waxooda oo wax kasoo qaad leh aan ahayn weeyaan. waa dad ahlu baatila. ma aha nusuusta runtii ku soo aroortay saxaabada fadligeeda iyo ammaanteeda ee qur-aanka ah intaa keliya ma ah. wax badan baad haddaad ka raajiciso fi suurati الtawba وفي suurati الfatx وفي suurati الxadiid وفي suurati الxashr wagayriha min suwar الqur'aan ayaad arki doontaa ilaahay subxana wa tacaala sida uu u ammaanay dadkaas. ehelna waa u ahaayeen runtii in la ammaano, waa dadka sababta u ahaa islaamka maanta shanta qaaradoodba gaadhay ee dadka haysta maanta ay 2 milyaar kusii dhow yihiin. dadkii ilaahay sababka uga dhigay weeyaan inuu sidaa u faafo, cilmi ahaan dadkii soo gudbiyey weeye, meel walba dadkii jihaadka ku geeyey weeye, dadkii u sabray ee u adkaystay xilligii islaamka dadkiisu ay qilada ahaayeen ay yaraayeen weeyaan wixii dhib ahaa dadkii u adkaystay ee nabiga sala allahu alayh waalihi wasalam hiilka iyo garabka u ahaa. ammaan waxaan ahayn dadka kama mudna, waxiguna saasuu u ammaanay. intaa waxaynu ku dhaafaynaa
tusaalayaasha aynu ka soo qaadanay qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku ammaanay asxaabu muxamed ridwaan ullaahi calayhim sala allahu calayhi wasalam. haddana wuxuun ka soo qaadi doonaa iyadana axaadiidta saxiixa ah ee sariixa ah ee ku soo aroortay fadliga saxaabada ridwaan ullaahi calayhim iyo wanaagooda. waxaa rasuulka ka sugan sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiidka bukhaari iyo muslimba ay wariyeen inuu yidhi khayru nnaasi qarnii huma aladiina yaluunahum huma aladiina yaluunahum. dad waxaa ugu khayr badan aniga qarnigayga baa ugu khayr badan. waa jiilkii isaga markaa la joogay sala allahu calayhi waalihi wasalam. kadibna kuwa ku sii xiga ayaa u khayr badan, kadibna kuwa ku sii xiga. laba jeer ayuu kuwa ku sii xiga xadiidku markaa sheegay. waa taskiyo uu nabigu sala allahu calayhi waalihi wasalam ku taskiyey ama ku ammaanay inay dad u khayr badan yihiin. waliba naska sidaasaa ka muuqata xadiidka, khayru nnaas, dadoo dhan inay u khayr badan yihiin. ma aha ummatu muxamed keliya, dadoo dhan ayagaa u khayr badan. jiilkaas nabiga la joogay sala allahu calayh waalihi wasalam saxaabadii ahaa, kadibna kuwii xigay ee taabiciinta ahaa iyo kuwii sii xigay atbaac taabiciinta ahaa. waxaa kale oo rasuulka sala allahu calayh waalihi wasalam fii xadiidin akhrajahu muslim ka sugan inuu yihi khayru ummatii alqarnu aladii bucithtu fiihim. ummadayda waxaa u khayr badan qarnigii la isoo saaray. huma aladiina yaluunahum huma aladiina yaluunahum. haddana kuwa ku sii xiga, haddana kuwa ku sii xiga baa xagga khayrka iyana ummadayda u khayr badan. wallahu aclam dakara athaalitha am laa. xagga huma aladiina yaluunahum miyuu mid saddexaad kusii daray mise maya, ilaahay baa og. marka taasina waxay ahayd ummadoo dhan, yani dadoo dhan ba xadiidka hore muttafaq calayhiga u ahaa. xadiidka muslimna wuxuu isna tilmaamay ummadda nebi moxamed inay u khayr badan yihiin iyagu iyo kadib ajaashii ku xigtay taabiciintii atbaacdoodii lahaa. waxaa kaloo uu muslim wariyey min xadiidi caaisha radia allahu canha inay tidhi nabiga sala allahu calayh waalihi wasalam nin baa weydiiyey ayu nnaasi khayr, dadka yaa u khayr badan ayaa nin nabiga sala allahu alayh waali wasalam weydiiyey. markaasuu wuxuu yidhi alqarnu aladii ana fiih, qarnigan anigu aan ku jiro, huma athaani huma athaalith, kiisa labaad iyo kiisa saddexaad yaa u khayr badan. nabigu marka sala allahu calayh waalihi wasalam wuxuu xadiidkaas riwaayaadka kala duwan leh, qaarkiiba qaarka kale wuxuun ziyaadaad iyo furuuqi ay ku jiraan, laakiin sida guud isku macnaha sheegaya saxiixeynka ama muslim labadaba ama muslim keliya ku sugan wuxuu inuu tilmaamay inay dad u khayr badan yihiin asxaabu muxamed ridwaan ullaahi calayhim. ummatu muxamedna inay iyagu u khayr badan yihiin oo u mudan yihiin ayuu inoo tilmaamay. marka insha allahu tacaala majliskan dhowrkaa xadiid baan ku soo koobaynaa oo khayriyada saxaabada uu nabigu kaga hadlay sala allahu calayh waalihi wasalam iyo ajaasha ummaddiisu say u kala fadli badan yihiin. kulamada xiga insha allahu tacaala ayaynu sii wadi doonaa axaadiidta baabkaa ku soo aroortay fadliga saxaabada ridwaan ullaahi calayhim, tusaalayaashii aynu ugu talagalnay insha allahu tacaala duruusteennan inaynu soo qaadno. wasubxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha illa ant astagfiruka waatuubu ilayk. They are mentioned in the Holy Quran. La ilaha illa ar-Rahman. La ilaha illa ar-Rahman. الرحمن الرحيم المالك القدوس